عن بضع الله ضي الله محلك إن قلبت هالكن أنا كوسو قلنا هاي وحنا دون إنه وايو إن ندوي سحس إنه كور برنامج أنا نقول كور إن وحنا كعد دارنا إن جيت كأن كور تكقرينه أما نكقرينه إنه صراحة جيدي صحضها أي نكورها كقرين شري اللي بيجي يو جيدي هذا كا إلا متكاها بلسوي هاي جندويل شرعسن أنا أقول حلنا إن مركا شرع عيسى ما دام وقت وقاد ويري هاي على العيد ويصير عيسو المركا أنا جيت هذاك دان فرسنه أنا كجالسين كرينين مركا النلاص على هذا مركا إن كما جالسين إن هذا أنا جيت هذاك أنا اللي وإحنا عايزين فرسنه مركا سادرتي الأيام جيت كان شرعسن دورني جيت مركا دوان قوي واكم وحجر وضر كيسان وجيت كأمومه لبض نعكا قان مدير جوده هذا وحن دوني أنا كجسو صاروا كار شقين يسوع عاد وشان قريسة أو مكرنا يساي قرح بدون وصف عام ما تهويسان ونضامسن مركا نوصل إن شاء الله جيت كي ولا سوق جوي وطلبات كوبات طلبات اللبات جودنتي اللي بقول الهويان اللي جو كيسين لها هنانك كارتا فاكت اللي هذا من جودن قرارات صدق كله طلبات جودن بيسا وحلا استعمال دون جودن تنادر كيسان جودن وحلا هذا شوبي شوبي بالي هذا وأنا مدي اللي جود دليل لها أما اللي جو حرد لها اللي جو سمين لها جودو si ay maragtay koorta u shaqeyso oo maartay ay u shanqadho insha Allah marka nala socda idinka ilaah hadda waa bilaabayna sama hadu yar ciida yar aan doonaya أبغى قلبت مع القرصة. قلبتها حنقرنا كور تاني معها وحسهلا معها فرسمة قعنتو أدب وكارنت هاي دتك أنت بدن فرسمة قعنتو هوي قنان أوه كذي هوي بقى بينه مركا أصحابته محاضر اللي هذا هاي وضو باقي ساعة كو أنا نوكاي كله horta koortii wata qaabkaas ay yeelatay cadaad aad u gaaban tahay kama gaarayno laakiin muhiimadu waxay ahayd wax koor yar hag u qaabay inaan sameeyno waa nooca yar afka ballaaran kaliya weyn bay iska noqotay haddaan hadda sii wadno si fiican u sii waxaynu waqti gelinana de koortan ka qurux badan oo ka habaysan ayaa magaranaysa noqonaysa laakiin waxa isku dayayaa iyadoo saasa inaan kaga shanqariyoon u yaraan ya waagar aha
qaabkii guud markaanu farsamaynay aynu rognay aynu caadi ka dhignay waxaanu u gudubnay in aanu duleelino koorta ama aanu xorno gudaheeda sidaa darteed hadda waxay maraysaa heerkii xorodka oo markii horeysay bilow ilaa iyo maartay aad la socoteen muddo waxay nagu qaadatay aan badnayn in magaranaysa aan xorodno labadayaal waad arkaysaan hadda waxa dhayo kaliya inaanu ka duleelino labada geesood oo halkaas iyo halkaasa ka bacdi aanu ku xidhno labadii carab ee koorta sidaasina loogu xidho neefkii loo xidho lahaa cadceed way naga dhacday waqtiguna markii hore aad ayuu u gaabnaa waxaan doonayaa inaan tusno weli farsamadii gacantana ay baaqi nagu sii tahay aad iyo aad baad u salaamantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh